xisbiga mucaaridka ee wadani barqad jaamac batun oo caawa warfidiyeenka la hadlay ayaa sheegay inaanay haba yaraatee wax isbedela ku imanin kulankii gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani iskugu yeedhay taageerayaasha gobolka Maroodijeex ee xisbiga wadani barqad jaamac batun ayaa sidoo kale sharci darro ku tilmaamay ciidamo la duldhigay xarunta guud ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada waxaanu ciidamadaasi soo jeediyay inay noqdaan kuwa ka shaqeeya amniga isla markaasna taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Maroodijeex waxaan mar labaad u sheegayaa farayaa taageerayaasha lixda degmo ee gobolka Maroodijeex baaqi gudoomiyuhu diray inuu bartiisi taagay bari toole 8 subaxnimana xarunta xisbiga inay iimaanayaan aanu waxna iska bedelin sidinayd qolooyinkii xukuumadda u hadlayay ilaa galabta ee tiradoodu tobaneeyada gaadhaysay ee gudoomiyaha u jawaabay waxay lowsan yihiin ay indhaha iska tirayaan ay dhigaha ka furaysanayaan xeerasha dalka iyo xuquuqaha uu muwaadiniinta siiyey waxay lowsan yihiin dastuurka iyo damaanadda muwaadiniinta u qaaday mas-uuliyiinta jawaabaysay waxaa ka mid ahaa ninka Solteyka leeyahay Solteyka warkiisa caawa waanu haynaa hadaanu xisbiga wadanina wuxuu soo qaaday maatada milcida fadhida inuu naseexaynayo 10 sano sanka la galaysa muddaxileedkiisa uu xaaraanta kursiga ku fadhiya ma maantu maatada xasuusta marka daadku rogmanaya ee ubadka uu qaadayo hooyooyinka uu qaadayo ee mas'uuliyadiisa u dayacay markuu cashuurtooda xaaraanta ku qaadanayaan sifada sharciga kursiga ku fadhiyo maatadu sheegay uu leeyahay dahabka suuqa yaala iyo lacagta suuqa taala sodonkaynana caawa uu diyaariyay minkunka dollar uu siiyay iyo fawdadu bari toole caasimada gelinayo waanu ka warqabnaa waanu ogna wixii ka imaada bari toole caasimada iyo dadka maatada hadaa suuqa lagu baadhana Solteyka yaada mas'uuliyadeeda qaaday wuxuu cirra ku baaqina suuq ma ahe waa xarunta xisbigana adna joojin maysid mid kalena joojin maayo taageerayaashana waa lagu hadlaya xeerka damaanad qaadaya inaan ummadda isugu yeedhno marka dastuurka laga yimaado waa xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer number 15212 qodobka 10aad firqadiisa labaad baa noo fasaxaysa inay taageerayaashu mas'uuliyiintu xisbiyadu taageerayaashooda xirmaha kula hadli karayaan ciidanka booliska waxbaha handadina muwaadiniinta masiirkooda xisbiga wadani ku aaminay ee bari toole dareenka mas'uuliyiintooda dhageysanaya ciidanka xisbi ahaan sharaf baan u haynaa waxa la gudboon inay nabadgelyada bari toole nagala shaqeeyaan oo taageerayaasheeda ay garab galaan oo sii galbiyaan oo soo galbiyaan oo intay socoto occasionka gudoomiyaha iyo madaxdu taageerayaasha ay kula hadlayaan nabadgelyada iyaga ka mas'uula cid kale uguma imanaysa nabadgelyada haddana xarunta ciidanka aad keenteen ee boqolaalka gaadhaya ka qaadabaan leenahay xarunta ciidankaas aad keenteen hadday joogayaan ha noqdaan kuwa suga amniga muwaadiniinta dhageysanaysa fariimaha madaxdooda waxaan ku ururinayaa oo mar labaad aan u sheegayaa taageerayaasha degmooyinka Hargeysa ama gobolka Maroodijeex ballankii gudoomiyaha waxba iskama bedelin waxaana inay idin cabsi gelinin hadallada ka imanaya 10 nin ee maanta hadlayay qaylinay iyaga sharciga ilaalin waayay waxa la idin sheegayaana waa badbaadada qaranka oo gacantiina ku jirta Axmed Nuur Ciise telefishinka bulsho Hargeysa